Dharaartii dambe baa wadaad socdaal ah aqaladii dhagdheer arkay oo intuu ku soo leexday dad qalatadii oo gurigeedii joogto u yimid. Markii wadaadkii arkay foolxumadeedii uu ka yaabay oo ka dhagagay, say tiri, war ma indhahaygaad ka baqday? Mashiiq cudur indhaha ku dhaco baan qabaa oo milix muro ayaan ku shubay, mise miciyaheedaa ka baqday? Yaraantay baan ilka dabici layga gurin, mise cidiyaheedaa ka cabsootay? Rajanimaan ku weynaaday. Naanin socdaal ah oo haraad qabaan ahayee i waraabi buu yidhi wadaadkii. Warxaamaha aqalka tobnaad yaal, tan tobnaad ku leexo, ardaaga agyaal ka soo darso oo ay sii sug intaan reeraha dab ka soo qaadanayo, baa tiri dhagdheer oo dhaqaaqday. Meeshii uu biyihii ka soo darsan lahaa haantii tobnaad taale aqalka tobnaad, wadaadkii wuu qaldamay ee wuxuu furay haantii sagaalaad ee taale aqalka sagaalaad. Wuxuu haantii ku dhex arkay qof calaacashiis iyo shanteedii farood oo ku yaal. Wuu naxay oo far iyo suud oo isku taagay. Markuu ogaaday in naagtaasi tahay dad qalatadii belada ahayd ee dhagdheer. Haantii wadaadka furay waxaa la odhan jiray Bowdheer, oo dhagdheer ku guran jirtay hilbihii dadka ay qalato. Markii furka laga qaado haantaas, bowdeeda waxaa laga maqli jiray meel dheer. Dhagdheer gurigeedii bay ku soo oroday oo kolkii ay maqashay bowdii haantii Bowdheer oo aragtay haantii la furay iyo wadaadkii ay guriga kaga tagtay oo maqan. Kadib way raadraacday, durba soo qabsatay isagoo meel sii ordaayo. Habeenkaas bay qalatay wadaadkii oo markii ay cuntay hilibkiisii tiri, wadkiisaa waday wadaadka, maxaa waddadeeda keenay?